Sene temizlikle ilgili, belediyecilikle ilgili hizmetleri Benadir Valiliğine, Mogadishu Belediyesi'ne devretmiştik. Bu devir sırasında belediyecilik hizmetlerinin, çöp toplama, katı atık yönetim sistemlerinin nasıl işletileceği konusunda eğitimler vermiştik personele. Şu an Benadir Valiliği, Mogadishu Belediyesi bu hizmetleri kendisi yerine getiriyor. Bizim daha önce bağışlamış olduğumuz temizlik kamyonlarıyla. sanadkii tagay waxaan ku wareejinay dhammaan baabuurta iyo qalabkaan u isticmaalno nadiifinta magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ayadoo isla markaasna aan u sameeyno tababaro habka loo nadiifin karo gobolka isla markaasna dhammaan shaqooyinka ku taxalluqa nadaafadda magaalada oo leeyihiin gobolka Banaadir ahaasna gobolka Banaadir way ku shaqeeyaan baabuurtaasi shaqaalihii loo tababarana waxay qabtaan shaqada nadiifinta gobolka Banaadir. Bugün de Sayın Başbakan Yardımcımızın katılımıyla belediyecilik hizmetlerinde altyapı imkanı sağlayacak olan beton santralimizi, taş kırma ünitemizi ve yaklaşık 45 büyük iş makinamızı ki bize toplam maliyetleri 30 milyon doların üzerinde olan bu varlığı Benadir Valiliğine teslim edeceğiz. wareejinta noo sameyn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenyaasha labada dal waxaan rabnaa in aan wareejino xaruntan isla markaas xarunta oo maanta ay ku sugan tahay ku dhawaad 45 marka. Sayın Valimiz, bugün günübirlik ziyaret için Somali'ye, Mogadishu'ya geldik. Beraberinde İstanbul Milletvekilimiz Nurettin Nebati Bey, Türk Kızılay Başkanımız Doktor Kerim Sınır, SİKA Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanımız Serdar Çam Bey ve AFAD Daire Başkanımız Cengiz Bey ile beraber bugün mutlu bir gün için buradayız aslında. Hem Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın Somaliler kardeşlerine selamlarını hem Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'in Somali Başbakanı'ndan acil yardım ihtiyacı içeren mesajına küçük bir karşılık olsun, başlangıç olsun diye buraya geldik. Tabii Türk Kızılay'ın Somali'nin ulaşım altyapısını tamamen düzene sokacak bir devir teslim törenini gerçekleştiriyor.
هذا ما أنت وحنا ماشي أنا ويماني أنا جاي مدح طبعا أو تعرفي بدنا هذا إسطنبول تكسعده وحاكله تكمل إذا بيش عزيز تركيا مدح بيش عزيز تركيا مدح تيكا هذا يصير كلته مدح هذا جرجار كدكتة أنت ما أنت بقشة إنه كتمت أمر نوبي مثلا كمرحوينها تركيا رجع طيب أردوان سلوك كلته رئيس الوزراء تركيا بن علي وها إن سوماليا بنقول جدنا. Aynı zamanda bugün biz TİKA'nın, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Somali'nin ulaşım altyapısına gerçekten önemli bir katkı verecek olan asfalt plantini, asfalt kilişerlerini, yükleme, boşaltma araçlarını, plantini, çok büyük kapasiteli bunlar. Yine bugün devrediyoruz. sidoo kale maanta meeshaan hadda aan ku suganahay xarunta bisha cas oo aan ku wareeji doono maamulka gobolka Banaadir ay yaalaan qalabyo aad u badan qalabyadaas oo kamid ah qalabyadii laamiga lagu fiiqaayay lagu nadiifinayay sidoo kale baawuro badan oo qashinka lagu qaado iyo qalabo badan oo aad u tayo leh makiinado badan baawuro badan ayaan rajayn doonaa inaan ku wareejino gobolka Banaadir haddii Ilaahay karaan noqdo. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Yol medeniyettir. Bu devir teslimi yaptığımız araçlarla, aletlerle Somalili kardeşlerimiz hem sağlıklı şartlarda ulaşım imkanına kavuşacaklar. Tozlu başka şeyli bunlardan inşallah kurtulacaklar. Hem daha konforlu bir seyahat imkanına kavuşacaklar. madaxweynaha Recep Tayyip Erdoğan waxaa jirto jumlad hadaladiisa jumlad kamid ah oo dhahayso wadada waa mar kastaba wadajirka micnaheedu waxay tahay dhammaan qalabkan hadda aan wareeji doono waxaa lagu nadiifin doonaa magaalada Muqdisho oo bilicda Muqdisho waxay ka tarjumi doontaa shacabka iyo dowladda dalka sidoo kale makiinadaha waxaa wax loogu qaban doonaa gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho ayadoo bilicdeeda iyo quruxdeeda si fiican u noqon doonto. Tabii bundan sonra bir programımız da kuraklıktan dolayı açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Somalili kardeşlerimize insani yardım ulaştırma merasimimizi yapacağız. Programkeena maanta waxaa kaleeto ku jira mucaawino aan u qaybin doono walaalaheena abaaraha ku dhibaataysan oo aan ka keenay dowladda Turkiga mucaawinadaas oo iska mucaawino aad u yar. Biz biliyoruz ki dünyanın neresinde bir insan aç ise, bir mazlum çaresizlik içerisinde ise dowlad saaxiib inuu dhow ay naga dhaxayso walaalaheen ah Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed taariikhda ayaa ka dhaxaysa oo ah ilaa boqortooyadii Cismaaniyiinta xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah waa mid ay dadka Soomaalidu xasuusan yihiin waa mid lama ilaawana waa mid taariikh qoto dheer ku qotoma taas ka sokow marka laga bilaabo boqortooyadii Cismaaniyiinta iyo xiriirkii ka dhaxeeyay dadka Soomaalida iyo Turkiga waxaan dadka Soomaaliyeed ilaabi doonin gurmadkii madaxweynaha Turkiga ee hadda uu u fidiyay 2011 markii abaaruhu ay dhulkeena ku dhufteen dadka Soomaaliyeed aad bay taa u xasuusan yihiin waan kaaga mahad celinayaa ra'iisul wasaare ku xigeen adiga iyo xukuumaddaadaba iyo dawladdaadaba sida walaaltinimada ah ee dhawaanshaha ee islaamnimada ah ee aad mar walba ugu soo gurmataan dadka Soomaalida xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dawladda Soomaaliyeed ee madaxweynaha u yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si aqlabiyad ah lagu doortay si aqlabiyad ah lagu ansixiyay xukuumaddana waxaa ka go'an in xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ay sii xoojiyaan sii laban walaaltinimada Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedna waa mid adag oo aan marnaba la jabin karin la dhaxgali karayn waa run oo loogu talagalay gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka ujeedadeeduna tahay
in la darso sidii abaarahan soo noqnoqonaya aanay mar dambe u dhicin in la abuuro biyo xidheenno in beeraha iyo wax soo saarka kor loo qaado in calafka xoolaha la abuuro sida Başbakanımız ALEK'te geliştirilmesi ilgili önereceğiz. abuurista calafka xoolaha oo la kaydiyo biyo xidheenno la sameeyo beeraha iyo wax soo saarka oo la kordhiyo waxay keenaysaa in laga hortagi karo abaaraha ra'iisul wasaare ku-xigeen waan kaaga mahadcelinayaa in aad naga caawin kartaan in daraasad lagu sameeyo sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha jaamacadaha Turkiguna haddii ay daraasadda iyo cilmi baadhistaas ay naga gacan geysanayaan waan soo dhaweynaynaa. Bu konularda özellikle suyun toplanması, yağmurdan faydalanması da yoksulluk önlenmesine sebep olacaktır. Bu konularda Başbakan Yardımcım araştırmalar yapılması için burada bir heyet göndermesiyle ilgili bize destek vereceğinizi umuyorum. Bu konuda destek verirseniz tabii ki sürekli devam eden bu yoksulluklara... Gider gitmez bizim çok kabiliyetli uzman kuruluşumuz var. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Hemen oradan bir ekibi TİKA ile beraber buraya koordine edip göndereceğim inşallah. waxaan rabaa inaan haddaba hal ballanqaad aan sameeyo mar alla markaan ku noqon dowladda Turkiga waxaan soo diri doonaa wakaaladda biyaha maxay ahayd oo u qaabilsan arrimaha biyaha Soomaaliya si ay u sameyso maxay ahayd baaritaankeeda iyo dhammaan howlaha ku takhasusda biyaha iyo biyaha. waan kaaga mahadcelinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeen in ay naga caawin rabtaan arrimahaas oo dhan horumarinta beeraha biyo xidheennada iyo wax kasta oo gacan ka geysanaya in laga hortago abaaraha. Size çok teşekkür ediyorum. Bu durumların gerçekten Somali'ye derinden etkilenen ve bizim halkımızı zor durumda bırakan bu durumların engellenmesi... Buradan uga faa'iidaysto inaan halkan uga mahadceliyo dowladda Turkiga iyo xukuumaddaadaba kaalmada ballaaran ee maanta ku wareejinaysaan dowladda maamulka gobolka Banaadir oo wax weyn ka tari doonta bilicda magaalada iyo in si fiican looga shaqeeyo magaalada waanan aad baanan kuugu hambalyeynaya. Bu fırsattan faydalanarak da ilk başta Türk Devleti'ne teşekkür ediyorum. Sonra da burada birazdan gerçekleşecek olan devlet teslimini baştan yapılmasını önerilen çalışmalarını yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii ki birazdan teşekkür edeceğimiz makinalara Mogadishu'nun güzelleşmesi, yollarımızın gerçekten sebep olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bismillah, elhamdülillah. Ve salatu selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ba'd. Xaganka Turkiga iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminaya dhammaantood waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga hay-adda Bisha Cas safaaradda Turkiga walaalayna TİKA dhammaantood waxaan leeyahay aad iyo aad aan kugu mahadcelinaynaa maaragtay waxqabadkiina baaxadda weyn leh ee muddadaad nala joogteen aan idinka arkaynay. Selamdan sonra Türk Devleti, Sayın Başbakan Yardımcımız, Somali Başbakan Yardımcımız, başta olmak zaten Somali'de gerçekleşen bütün yardımları bize kolaylaştıracak. Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyorum. Yaptığınız yardımlara zaten unutulmaması imkansız, göze görülebilir, üzülebilir şeyler. Kelmadii ay mudnaada meesha ra'iisul wasaare ku-xigeenkayna ayaa yidhi laakiin maadaama nagula wareejinayo duqi magaaladan aan nahay gobolka Banaadirna lagu wareejinayo waxaa ila habboonaatay inaan kelmadayda aniguna aan soo gudbiyo oo mahadcelinta ah. Söylemem gereken bütün sözleri zaten siz söylediniz. Bana bir şey kalmadı. Ama Banaadir Valisi ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu teslimden dolayı teşekkür etmem. 27 bishii saddexaad
hadda aan ku jirno ayaa waxaan kala sayaxanay ninka ugu sareeyay bisha cas iyo annaga aan kala sayaxanay wareejinta qalabka nagula wareejinayo laakiin maanta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa si rasmi noogu wareejinayo waa mas'uuliyad culus oo u baahan laftirkeeda gudasho qalabka nagula wareejinayo annaga cid walbaan u sheegnaa meel walbana waa ku sheegnaa walaalahayna turkiga waxa ay noo qabteen oo wax la taabo kara ah shakhsi kastoo Soomaaliya gudaha iyo dibadda meeshuu joogaba ma iloobayo qalbigiisana ka mugoy doonto walaalahayna turkiga waxa ay noo qabteen vatandaşlar Türk kardeşlerin yaptığı yardımlara veya yaptığı o özelliklere hiçbir zaman unutmayacak. mantaanayntii muqdisho iyo istanbul oo aan dib aniga iyo u kala seexana maayarka istanbul waa hubaa inuu ka dhabeeyay wixii uu ballan qaaday waa wax muuqdo Genellikle İstanbul'un ilişkileştirilmesi projelerinin töreninde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sözlerin bir yerine getirdi. Onu teşekkür ediyorum. aniga waxaa la yaqaanaa kacdoonka wadooyinka wadadii soddonkana waa ka sugaynaa haddii ilaa yidhahdo walaalahayna turkiga Bana Mogadishu'da başka bir lakap verdiler. Lakapta yolların karalı gelecek yani. O yüzden şimdi de bir caddemiz kaldı. O caddenin tekrar yapılması gerekiyor. Onu da en yakında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği sözün üzerinde tekrar yapacağız. ra-iisul wasaare waxaan rabaa ra-iisul wasaare inay hortiina uga mahad celsho mar labaad iyo mar saddexaad safiirka turkiga oo runtii si dhow noola shaqeeya mar kastaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim için hazırdaydı ve bize yardım etti. kusoo dhawaada magaalada muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku soo dhaweyna ma naqaano oo maaragtay ra-iisul wasaarahayna ayaa idinkala hadlay insha allahu haddana waxaan rabaa in hadalkeeda soo koobo Size nasıl karşılayacağımı bilemiyorum. Mutluluklar sadece hoş geldiniz diye biliyorum. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما والله ولا واحد قال خليه خليك على سهل ما دقيقه وعلى ما نكون tamam bakan gelin tamam ورياش لك الكاميرا مركزها Başkan şöyle alalım size. Kardeşim olmasın. Sayın Bakanım, buradayız efendim. Evet, çekenler bir çekerse artık. Aynen. Aynen arkadaşlar. Çekim yapanlar. Okay. The photographer. Please give us go down, little bit down. Give the yeah. Down guys. Photographers, please down. Photograph down. Hadi bakalım. Açalım efendim. Buna mı açalım? Buyurun. العكا نصيب ولا يدين بالعكس دونسا. ما كويس كوس. بتوقع هذا السنة. بتوقع العكا السنة. قول يدين بالعكس. بالعكس. بالعكس يصير. أنا قولي.
ما يوريش حمل ما يمري وجه شيخ بس الله صالح الدوي ولجوا يقول اخني كم اكبر قوم وكاله $1 على 6 كيلو دولار حتى مكان مغتقي ساعات تجي سنه كنا كنا من العبد رات سنه كم مقطع ما حضرنا بالموضع وسلا اجلس قاعد سنه دخل يسوق الله دخل الان بس الله سبب في اوقات وقت شغلنا عايته مساء كون ميلو كجوين نيكا كون ميلو كجوين فرح عليه شيء هذا ورد السوق مع فرح تقول فرح ولا فرحوا ما يبغى تفرحوا بويت كجرت من كو هاي ويشد ما خا كو لو صدق فشل لحظه كنت مقاطع تضو سدد مية كوا عارفين سدد مية سدد مية المقاطع تضو بينا أفر تموه عباس عباسو عباس انت ماو انا كده بشوف كلام فرحوا إيمانك على كاقاض أرنو وحايو إسحيسيد سكراف سحيو الله يقول فيك أبي في ورا ساعة وأنا في ساعة لسه عولا
فرينا